markasta oo loo maleeyo in heshiis rasmi ah oo kama dambaysa laga gaaray arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waa markasta oo xujooyin cusub la soo oogo iyada oo mararka qaarna fagaaraha siyaasadda uu isu bedelo masraxiyad xamaasad leh isha falataynta xubsiibashada siyaasadeed gorgortanka hal adeega ku dhisan oo mararka qaar lagu sifeeyay marka dhignimo ayaa ka mid ah waxyaabihii saldhigga u ahaa wadaxaajoodkii fashilka badnaa tan iyo bishii Sebteembar 2020 oo uu xarig jiid ka socday markasta oo ay guuldareystaan wada hadallada ayay qolada kala ku shimbirawaaqleynaysay iyada oo cawaaqib xumada ka dhalatay heshiis la'aanta loo arkay arrin deero umahardisho ah oo aysan jirin cid mas'uuliyadda dhabarka u ridanaysa ciqaabna ku mutaysanaysa xaalka markasta waxa uu ahaa garbasiman mana jirin cid dhexdhexaad ah oo ku dhex jirtay dhinacyada waxaana aad u yaraa waxyaabo seesdhig u ah oo lagu dul dhisayay heshiiska marka laga reebo qodobo guud oo aysan jirin cid gaar ah oo ay dan ugu jirtay wixii la soo gurgurtaba waxa la soo gaaray dabayaaqadii bishii hore markaas oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu majaraha u qabtay wadaxaajoodka madaxweyne Farmaajane uu geed fadhi u noqday xajada waxaa lagu guuleystay in qalinka lagu duugo heshiiskii 17 Sebteembar iyo kii laga loonjeexay oo 16 Febraayo ee Baydhabo iyada oo aysan jirin qodobo waaweyn oo isbedel lagu sameeyay qodobka ugu muhiimsan ee heshiiska waxa uu ahaa in doorasho lagu qabto muddo 60 maalmood gudahood taas oo ay hadda tagtay kala bar ilaa haddana waxyaabaha qabsoomay ee aad u yar yihiin marka lagu garab dharariyo baaxadda hawsha ay tahay in la qabto iyo waqtiga dhiman tiyo uu xaal sidaas yahay ayaa waxa hadda la isla dhaxmarayaa in uu soo socdo shir kale oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha ay ku madlan yihiin kulan kale oo la sheegay in lagu turxaan bixinayo qodobo heshiiska ku jiray oo la dhaqaajin kari waayay waxyaabaha lagu soo wareeyay ardayada shaaha iyo bunka lagu fuudo ee Xamar iyo Nairobi ayaa waxa ka mid ah in deegaan doorashooyinka lagu soo koobo hal goob halkii ay markii hore ahaayeen laba goobood waxaa tusaale loo soo qaadanayaa in dowlad goboleedka Jubbaland ay caqabad ka haysato magaalada Garbaharey doonaysana in Kismaayo la isugu soo biyashubto sidoo kale dowlad goboleedka Hirshabeelle uu dib weyn ka haysto magaalada Beledweyne halka koonfur galbeedna aysan ku falaxsanayn magaalada Baraawe tani haddii ay dhab noqoto waxa ay ka dhigan tahay in arrintu tahay faanoole fare kama qodna waxaase ka sii halis badan waxa ka dhalan kara in la furo heshiiskii Sebteembar taas oo sahli karta in dhinac ka mid ah dhinacyada uu miiska la yimaado qodobo ugub ah oo ay tahay in si hor looga wada hadlo arrimaha galalkooda uu rahman yahay ee qaanadaha la geliyay waxa ka mid ah 13 xubnood ee aqalka sare ee gobolka Banaadir ee baarlamaanka federaalka uu ansixiyay weydiimaha dul hoganaya doorasho ka dhacda Soomaaliya ayaa u eg googaaleysi jawaab kasta oo laga bixiyana ay sax noqon karto